Waa mar kale iyo barnaamijkeenii talo iyo tusaale ayaan kusoo qaadanaya baryahan arrimaha qoyska qaybtiisa 6aad waan kusoo qaata maalin walbo Jimco ah waa qaybta 6aad kusoo dhawaada Jimco mubaarak ayaa idin leeyahay Jimco kariim ilaahay dhamaanteen hana waafajiyo maalinta Jimcada fadligeeda iyo khayrkeeda dhamaanteen ilaahay hana waafajiyo meel walbo aan joogno marka barnaamijka qaybta 6aad uu maanta noo maraaya soo dhawaada intii aan ku cusub hadda aan gadaal u raacato ilaa aasaaska qoyska oo qaybta koowaad ah soo dhageysada intii ku cusub intii la socotayna way la socdeen marka barnaamijyo kale ku xigi doono talo iyo tusaale meelo badan aan ku soo qaadan doono hadii Ilaahay nafta igu simo marka qaybtan hadii nambarka inoogu dhamaato waan arkeynaa maanta waa qaybta 6aad soo dhawaada ayaa idin leeyahay insha Allah khayr idin rajeynaa dhamaantiin soo dhawaada dhegeysi wacan waa barnaamijkeeni talo iyo tusaale qaybtiisa 6aad ee arrimaha qoyska oo noo socday baryahan qaybtiisa 6aad aan maanta mareynaa oo aan kusoo qaadanayo kala tagi iyo famirka kala tagiisa yacni dhibaatooyinka uu keenay iyo laga dhaxlay lana arkay si looga digtoonaado inta dhiman dhamaanteen aan uga digtoonaano taasaan maanta kusoo qaadanaya qaybtan 6aad qaybtaas aan qaadanayo 3 qaybood aan u kala qaadayo ma kusoo dhawaada dhamaantiin walaaladii channelka bismillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa Cafiifa iyo mar kale channelkeena Cafiifa channel kusoo dhawaada dhamaantiin walaaladii meel walbo aad joogtaan waxaan idin rajeynayaa inaad ku caafimaad qabtaan dhamaantiina ilaahayna inteen dhimatahay u naxariisto inta xanuunsan ilaahay caafiyo inta dhibaatooyin kala haystaan ilaahay ha ka dulqaado dhamaanteenana ilaahay meel walbo aan joogno caafimaad iyo cimri dheer ha nagu siiyo dhamaanteenaba kusoo dhawaada idin leeyahay channelka dhamaantiin inta hore idinla joogto waxaa idin leeyahay mahadsantihiin jazakallah khayr inta igu soo biirtay sidoo kale waa mahadsantihiin adinkana jazakallah khayr inta cusub adinkana kusoo dhawaada channelka subscribe dhaha gambaleelka furta hor gala fiidiyowyada kala soo daawada insha Allah dhamaantiin waxaa idin leeyahay soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin channelkana maxay ahayd barnaamijyada haddii aad ka heshaan share dhaha like ha ka baqaylin dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijyada waxba ka anfici doono sida ila tahay maanta waxaan kusoo qaadanayaa qaybta 6aad ee barnaamijkeena talo iyo tusaale ee arrimaha qoyska marka kala tagi iyo dhibaatooyinka uu keenay aan kusoo qaadanayaa qaybtan 6aad oo 3 qayb aan u kala qaadayaa horta maxay ahayd meesha familkii ku burburay kala tagaa ka dhashay kala tagaas lagu kala tagay meesha waxay noqonaysaa qaybta koowaad waa dhibaatada ugu weyneed ee noqonaysaa tan labaad waxay noqonaysaa in cadow badan uu yeelanayaa maadaama gurigaas uu dumay oo daldaloolo badan yeeshtay cadow badan uu yeelanayaa haddii ahaan lahayd qurbi joogto weliba tan qurbi joogto aad u quseeyaa dalka waxaa laga yaabaa inkastoo burburka intiisa la egyahay oo kala tag meesha hadduu dhaco haddii ubad joogo ubadka meesha ku rafaado oo la ogyahay weliba culays aad dhibkiisa u leh oo ku haysto xagga markay waalidka kala tagaan ciyaalka oo siiba hooyada xataa aad uu culays u saaran yahay wadankii waa isnaqaanaa Soomaali dhaqankeeda way is yaqaaniin oo hooyada aad loogu adkeeyo marka xagga lagu kala tago yani familka inkastoo ilmahana ay iska koraan sida Ilaahay u qadaray u koraan dhibaatadii mar walbo qadadii way iska jirtaa idan in culayskeeda laha ka jirto wadankii laakiin tan aa kasii daran oo qurbaha ah dhibaatooyinka ka dhaco marka haddaan usoo noqono tan qurbaha waa tii koowaad oo burburka meeshaas ugu weynaya ka dhashay kala tagi tan labaad cadow uu yeeshay maxay ahayd familkaas kala tagiisii oo maxay ahayd wadanka ay joogeen korba lagala socdaa inkastoo mar walba kor iyo hoosba lagula socdo haddana familka markuu sii kala tago indho gooni ah loo yeeshaa taas aydan sii saaran oo qaybta labaad ah tii 3aad
ilmihii ayagana waxaa meesha uga dhacaya jahawareerkaas oo ayagana marka dambe ku geenaya inay go-aan qaataan ayagana ay xal iyo wax ayaga ay xal u arkaan ay samaystaan marka dambe taas ayadana meesha ka dhalato marka in waxyaalahaas oo dhan waxaa fiican ay waalidiinta maskaxdooda dib uga shaqaysiyaan oo soo xasuusto in dhibaatooyinkaas la arkay horena loo arkay inta dhiman si ay uga digtoonaato oo uga gudbaan marka in haddii intaasaa dhacdo waxay ku dhacaysaa familkii kala tag waa khasaaro in cadow badan in la yeesho oo indhaha lagu haayo oo labada waalidka markaad ilmaha la joogo culays aad u badan uu saaran yahay oo mar walba lala socdo culayska uu u badanayo iyadoo gabadhu iska dhibaatadeeda ay laheyd qurbaha ku haysata dadka haddana marka lasii kala tago kuma jirto meesheedii waxaa kasii bilaabanaysaa iyadoo laga jibaarantay marka taasna waxaa waa iyadoo indhaha lagu haayo mar walbo qaarkood dadka soo koontaroolo lala socdo ay noqonaysaa hadday noqoneed meel walba oo ilmaha iyo maxay aheede hooyada haddii taa kaligeed leeyahay yani in isha lagu sii haayo taasaa idan dhibaatooyin badan uga imaan karto tan kale waxay uga imaanaysaa ilmihii oo haddii labadii waalid laba guri ay kala digeen way kala digayaan haddii ay kala tagaan marka ayagoon kala teginayba dadka qaar ay kala degan yihiin laakiin ayagana way arkeen dhibaatada ay leedahay taas hadda waa tan kala taga ahaa hadda aniga aan uga hadlayaa sida aan u arko ani marka labadii guri ay marka ilmihii marba dhinac aadayaan ku jahwareerayaan oo meeshaas igana isleeyihiin bal adigana meeshan gurigan laba guri laga kala yeesho laga kala tego qof walba uu xornimadiisa u socday adigana markuu xoogaa soo roonaado waa in adigana aad isbixisid oo adigana waxaa rabta aad samaysatid markaas go-aan u qaadanaa cunuga meeshaas wuxuu uga daysanaya waalidkiis uu leeyahay gabsaanay xal u arkeen marka adigana waa inaa xal raadsatid oo aad isbixisid marka hore waxaa laga yaabaaba inuu waalidka labada isla joogto waalidka uu arko wanaaga iskula joogaan iyo xoogaa inuu intaa isku celceliyo cunuga oo adinkan aa sii waanisiin عقد وأركينا ما كلا قاعدة يعني إذنك قبل noloshiisa شيء حروق نقضي أسكن نور الأولاد سنة أو حروق نقض أسكنه marka aynan jaaniskaas meesha ugu soo baxaayo haddii xataa ay u soo jeediyaan waalidka kama yeelaayo wuxuu leeyahay adinka dadku aan qaataa tihiin oo meesha rabtiin amarteen oo waxaa rabtiin aad samaysatiin anigana sidoo kale waa inaan isbixiyo marka dhibaatooyinkaas uu keenaa burburka oo horena loo arkay oo wax hadda dhacay ma aha wax yani liiska dhahaayo marka dhibaatooyinkaasi oo looga gudbo oo looga maxay ahayd iskaga ilaaliyo waxaa fiican wax walba in samir iyo dulqaad lagu dhameeyo laguna adkaysto taasaa looga gudbi karaa oo la fiiriyo ubadka hadduu meesha jooga haddii laba qof oo ayaga aan markaa ubad ka dhexayn ay tahay marka meeshii un ayaga ku kala tegay ma ahan wax kaloo maanta ilmo iyo meesha dad maarta meesha nolol kaloo kusii burburta ma lahan waxay ku ekaanaysaa un ayagii laakiin meeshaan hadduu famil buuxa uu ahaa oo ilaahay marka hore barakeeyey dhibaatooyinkaas aa ka imaanayo oo ilmihii hadduu xataa hadalkaa ma yeelaayo oo go-aan meesha uu ka arko adiga u bilowduu samaysanaya oo hadhowta xataa haddaa idinkii maxayda qof walba istiraa nolol samayso oo nolol raadso asagana sidaasuu samaysanaa isagoon xilligeeda gaarin oo waqtigeeda gaarin oo weli ilmo ah oo inuu asna firiin noqdo isku dayaaya kaa tashado marka meeshaas adigana maxay ahayd waxaa ku yaraanaya awoodaadi waalidnimo aa meeshaas adigana ku weynaysaa oo ku daciifayso marka saas in loo taxadaraa fiican ilaahayna hanala garab galo meesha adduunyada si kale aa la joogaa xaaladeeda iska tahay waqti siman aakhir oo maalinba waxba iska soo socdo maalinba waxba isbedelaayo marka sidaasaa fiican in loo taxadaro oo weliba hooyooyinka badankood qurbaha ayagaa ilmaha ku haro markay kala tagaan waa la ogyahay ayagaa labaa inay zaa'id ay dulqaad u sameeyaan oo ay u safraan badanaa markii la kala tago ragga waa iska daneystaan hortooday u socdaan inay nolol kala samaystaan ay dhaqsiba hore ka raadsadaan marka culays oo dhanba wuxuu ku haraa hooyada oo weligeedba iska saarnaa haddana ayadu ku laba jibaarma iyo saddexba uu ku tagayaa
qaarkood iska fududaada waad arkaysaa oo markuu odayga ay kala tageen oo la sameysto uu baxo meeshuu rabo galo ayagana dhahay ana aan sameysto meeshaasna aynan fiirinaynin ilmahoodii marka inay ayagana meeshaas safraan dumarka tan aad ugu sii adkeynaya oo u fiican oo hadday dhacdo ay maxay ahaday dul qaataan ilmahooda fiiriyaan noloshooda fiiriyaan oo taxadar iyo dadaal iyo in ilaahay la garab galo ay ku adkaystaan ma aha inaa asaga aa la xintantid oo markuu tilaab qaadana aa ka daba qaadid oo intay ku dhacday intaasna aan usoo jeedinayaa inaysan sameynin oo ay samraan oo maxay ahaday taxadaraan taas ayaan usoo jeedinayaa marka maanta waxaan kusoo afjarayaa aan kusoo dhameynayaa in maxay ahaday qaybta lixaad ee dhibaatooyinkaas ay keenayso in ciyaalka ay go-aan qaataan oo isku socdaan oo ay dhahaan annagana idinku waa isbixiseen oo waalid ahoo boqol meeshuu rabuu maray oo nololuu samaystay oo meeshuu rabuu horaba kasoo samaystaa u baxaayo kasoo daneystaa marka ana waa tayda inaan samaysto marka la wada joogo waxyaalahaas oo dhan indhahooda ma qabanayaan laakiin hadda jaanis ee u furmaayo sida aniga u arkay horena loo arkay marka insha allah walaalay dhammaantiin taxadar iyo maxay ahaaday dulqaad iyo samir intaasaan idinkula dardaarmayaa nafteyda iyo adinkaba insha allah khayr ayaan idin dhaafay barnaamijkan haddii aa ka hesheen sheer dhaha insha allah walaalihiin kala qaybsada khayr badan ayaa idin dhaafay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu